Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabta qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo kusoo dhawaada mar kale kanaalkana Liverpool Fans Somali News oo aad markasta kala socotaan wararka kooxda kubadda cagta Liverpool iyo waliba suuqa kala iibsiga iyo waliba wargeysyada waxay ka qoreen kooxda Liverpool iyo waliba wax kasta oo aad u baahantay Liverpool. Kooxda kubadda cagta PSG ayaa xiiso u qabtay daafaca kooxda Liverpool Joel Matip kaas oo ilaa xalay toole ay wararku ay sheegayaan xiiso waali ah oo qabta kooxda PSG xidigan reer Cameroon. Liverpool xidigan markii hore wuxuu ugu imaaday beeca xorta ah ama bilaashka. Liverpool ayaana la aaminsan yahay haddii xidigan ay ku hesho lacag macquul ah inay iska diri doonto maadaama xidigan markii hore kooxda ugu imaaday lacag la-aan sidoo kalena ay da'diisu aad u sii weyn tahay. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto daafaca kooxda kubadda cagta Real Betis ee Aïssa Mendy. Xidigan ayaa daqiiqadan aan fiidooga duubayo wuxuu qarka u saaran yahay inuu kooxda kubadda cagta Liverpool ugu biiro lacag dhan 11 milyan. Xidigan xulka qaranka Algeria ayaa la aaminsan yahay inuu markii horeba doonayay Liverpool uu ku biiro kaliya xalay toole ayay ahayd markii kooxda Real Betis ay kooxda Liverpool u sheegtay inay 1 milyan iyo 8 ama 1.8 milyan ku darto haddii ay doonayso xidigan ama xiisaha xidigan ay dhab ka tahay. Laakiin hadda Liverpool xidigan qarka ay u saarantay inay kula wareegto lacag dhan 12 milyan. Waxaan warkan ka soo xigtay majalada beIN Sport ee dhanka Twitter-ka. Haddaba taageere ka war haddii Liverpool ay la soo wareegto Mendy muxuu ka bedeli karaa, muxuu ku soo kordhin karaa, ma yahay bedelka saxda ah ee xidigii hore kooxda Liverpool u xidhan jiray maaliyadda lixaad ee Dejan Lovren kaasoo xilli ciyaareedkan ama xagaagan kooxda Liverpool ka baxay kuna biiray kooxda kubadda cagta Zenit ee ka ciyaarta wadanka Ruushka. dhanka kale xidiga xulka qaranka Isbaanishka iyo waliba kooxda kubadda cagta Bayern Munich Thiago ayaa wax maalin kasta soo baxaya warar sheegaya Liverpool inay ku dhowdahay Liverpool inuu qarka u saaran yahay Liverpool inay xiiso u qabto Liverpool inay la xiriirtay kooxda Bayern Munich laakiin ma jiraan warar sax ah waliba ma jirto wax dalab rasmi ah kooxda kubadda cagta Liverpool ay u gudbisay kooxda Bayern Munich kaasoo ku aadan saxiixa xidiga khadka dhexe ee xulka qaranka Isbaanishka. sidoo kale kooxda ka ciyaarta Championship-ka Ingiriiska ee Swansea City ayaa waxay mar kale xiiso u qabtaa inay da'yarta kooxda Liverpool ee Ryan Brewster ay sii haysato 1 sano oo kale taas oo ama ah Brewster ayaa xilli ciyaareedkan u saftay kooxda kubadda cagta Swansea 22 kulan oo Championship-ka wuxuuna u dhaliyay 11 gool. sidoo kale wuxuu ka caawiyay inay maadaama play-off-ka lagu soo baxo Premier League laakiin waxay ku hareen isla play-off-kii